Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal, ku soo dhowaada cashirkeena cryptocurrency. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay si madax bannaan in aad hadda kadib aad uga shaqaysan karto cryptocurrency si live ah, weliba adiga oo cidna baryeyn. Maskaxdaada iyo aqoontaada iyo researchkaada ayaad isticmaalaysaa. Marka marka anigu waxaan ku siinayaa wadadii ama qaabkii ama weygii aad u horumari lahayd. Weligaa ma arkaysid cashirkan oo kale qof ku dhahayo anigaa ku baraayo. Badanaa u fiirsaday dadka cryptocurrency ee Soomaalideena ah waxay sameeyaan lacag ayay ka qaataan dadka, weliba aad u qaali ah. Aniga forex ayaan trader ka ahay. Signalis waxaan hayaa profitable ah, laakiinse waa lacag signalskaas. Sorry. Marka cryptocurrency waxaan go'aansaday maadaama ay tahay meel qof walba si degdeg ah u fahmayo, si degdeg ah ula qabsanayo, oo si qaabka forex aysan ahayn oo juhdi badan qofka uusan uga baxaynin. Waxaan go'aansaday inaan uga soo duubo video YouTube-kana idiin soo geliyo fiidiyoyada muhiimka ah ee la xiriira cryptocurrency-ga. Cashirkan fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad si wanaagsan u dhuuxdo, si wanaagsan ula socoto. Fadlan haddii aadan cashirkan iska daarato ee aad iska aamustid, aadan si toos ah ula soconayn, iska gudbi ayaan ku dhihi lahaa. Sababtoo ah kuma quseeyo. Sababta haddii aad jeceshahay inaad horumar noloshaada aad ka samaysid, aad ka gaartid, cashirkani waa kaagii. Fadlan si taxaddar leh u daawo. Subscribe-ka iyo like-tana ha naga iloobin. Wixii dhaliil ah ee cashirka gudihiisa aad ku dhex aragto ama in laga bedelo ama aad jeclaysatay haddaa aragtid, sidoo kale xagga commentiga waad nagula wadaagi kartaa taladaada oo inoo muhiim. Anyway, website-kan waxaa la yiraahdaa DXCrain. Inaad arki kartiin kale lama ahan, laakiin hoos ayaan idinkugu soo qorayaa linkigiisa. Xagga commentiga waxaan saarayaa commentiga ugu horeeya ayaan pin ka saarayaa, halkaas aad ka fiirsan kartaa haddii aad hadda arki weysid. Wixii kaloo linkiya ah ee halkan aan ka galayo ee aad arki weysid ama shaashadda aysan kuu soo qabanayn, sidaa darteed hoos waad igu soo weydiin kartaa commentiga. Marka aanu bilaabno, hadda waxaan ku jirnaa DXCrain website la yiraahdo. Website-kan aan ku duldhaco si horumar ah. Waxaa jiro website-yo badan ee la soo geliyo tokenska ama cryptocurrencies-ka news-kooda iyo akhbaartooda. Kan waxaa lagala socdaa news-ka iyo akhbaarta tokenska cusub. Marka si aadan si aadan ugu wareerin qaabka uu yahay website-kan iyo coin market maxay ku kala duwan yihiin. Okay, coin market waa kana. Coin market iyo coin-kan iyo website-kan waxay igu kala duwan yihiin. Difference aad u weyn u dhexeeyo. Coin market waxaa la soo geliyaa waa website caadi ah. Waxaa la soo geliyaa saa u jeedaanba listiga ama ranking-ka tokenska la verify gareeyay. Halkan ayaa la soo geliyaa sida Bitcoin ugu sareyso ilaa adiga waa dhowr milyan oo coins. Marka midka coin kasta cusubna halkan la soo geliyaa. Qaabka loo soo gelinayo halkan waxaad ka arkaysaa crypto, NFT, category, token unlocks, Rhino, Memo, Sol. Waxaan dhan waxaa waaye magacyada tokenska ama cryptocurrency-ga. Mid walba wuxuu leeyahay qaba. Hadda kan waxaa la AI ku saabsan yahay. Kan wuxuu ku saabsan yahay AI agent. Kan waa DeFi, kan waa gaming. Way badan yihiin markaas u sii socotid. Laakiin waxa ugu caansan waxay yihiin kuwa dadka intooda badan dhagooda ku soo dhaco waa Memecoin ayaan maalmahan ugu caansan. Memecoins. Memeskan markaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxayo Memecoins dhan ayaa kuu soo baxayo. Okay, Memecoins waxay caan u yihiin oo kale maalmahan loo bumbuuninayo. Qof walba samayn karo. Adoo kale samayn kartid hataa suuqa fahanteed waa soo gelinaya. Waxaa waaye coin-kaas ama ku qarxa ama ma qarxaya. Hadda Memecoin waxaa ugu sarreeya Dogecoin ugu sarreeya oo aabo ah.
waxaa ku xiga Shiba Inu, Pepe iyo Trump official oo hadda uu jiro tusaalaan 10 days inuu jiro aan maleynayo. Bank sidaan ayaad yacni meme coinka ku arki kartaa kor ayay saaran yihiin markaad tiraahdo all crypto markaad tirahdid wax dhan ayaa kuu soo baxayo. Anyway muhiimadeena maahan maanta inaan sharaxno coin market. Maybe qof walba uu la socdaa coin market iyo waxa uu qabto. Coin market cap yacni price-ka saxda ah ee suuqa ayuu mar walba kuu sheegaa. Hadda price-ka saxda ah ee Bitcoin waxa waaye 99 waxa waaye 99,000 ayay maraysaa maanta. Waxaa ku xiga Ethereum oo 2,700 marayso. Waxaa ku xiga XRP. XRP inta uu imaado hoos ayuu joogi jiray sababtoo ah market capkiisa ayaa wuxuu noqday lacag aan caadi ahayn ayuu noqday. Wuxuu soo baasay Solana ayuu ka badan yahay. Marka marba haddii kan Ethereum aan kan la yiraahdo XRP ay kala market marba midkiisa market badan ama supply badan ayaa sare maraya sababtoo ah volume-ka lacagta dhex taalo waxa waaye 39 bilyan waa halkan oo tahay 96 bilyan halka ay marayso supply-geeda BTC ay marayso ama market cap-keeda ay trillion ay ku maraysaa. Si kooban halkan ayaad si fiican uga arki kartaa. Geeskan ayaad si fiican uga arki kartaa. BTC hadda market cap-keeda waxa waaye 1.9 trillion ay maraysaa. Volume-koodana waa billions ay maraysaa. Ujeedid 116 bilyan ay maraysaa. Coinanka kale markaa fiiri sidoo kale sidaas ayaa ayagana ogaan kartaa. Anyway waxaan tegaynaa Dexcrane marka waxaa la soo geliyaa coinanka hadda la sameynayo halkii saac daqiiqada wari hadda ujeeda coinka ugu horeeyo waxaa la sameeyey 5 saac ka hor, kan ku xiga 10 beri ka hor, kan ku xiga waxaa la sameeyey 2 beri ka hor, kan waxaa la sameeyey 1 saac, kan waxaa la sameeyey 11, kan waxaa la sameeyey 3 bilood ka hor. Hadda isku dhex jiraan marka qaabka u kala saaraysid waxaad taabanaysaa top. Markaad taabatid top gainers ayaa kuu soo baxaya. New pairs aadan leedahay. New pairs waxaa waaye pairiska ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay 24 saac wixii ugu dambeeyay waa kuwaana. Yaa ugu sareeyo waxaa ugu sareeyo calaamadan loogada McDonald's-ka midka wato Mac Volume price-keeda wuxuu maraa 0.0017 mara. Volume-keedu waa 5 milyan. Market cap-keedana waxaa waaye 1.7 milyan. Marka tusaale ahaan ayadoo kale aan ku dhufanaynaa. Ayadoo kale markaan ku dhufano already markaa saan hor ay kuu soo furanto wixii scam ah iyo waxa scam ahayn waa kala fahmaysaa. Already waxaa la sameeyay aan ku dhahay 1 saac ka hor mise 2 saac ka hor I think inta ka fiirinayna waxaa la sameeyay 5 hours ka hor la sameeyay. Haddana saas ay tahay waxay sameynaysaa waa ujeedaa 2 candle 3 candle dadka iibsanaya ujeedaa 15 second 80 second ay u dhexeeyaan transaction soo dhawayo. Hadda coinkan oo kale inaad fiirisid waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa Mac Volume address-keeda kan dhexe ayaa soo qaadanaysaa Mac Volume ka. Waxaa imaanaysaa 2 qaab ayaa u fiirinaysaa. Qaabkan waxaa waaye hadda kan waa bot waaye Telegram-ka ku xiran. Botyadu way badan yihiin marka botka ugu fiican aad is leedahay soo raadso saas ayaa u gelinaysaa. Wuxuu kuu sheegaa marka xogtii oo dhammaystiran oo kooban oo ku siinaya. Wuxuu kuu sheegayaa looks like to be okay. Looks clean to me oo ku leeyahay kasoo soco. Liquidity-ga waa walaahi no minty waaye. Adiga waa inaad yacni go-aankaaga ama decision-kaaga aad ku gashaa lacagta cid kugula talinaysa malahan. Haddaad doonaysid inaad markaan ka hadlaynaa taas laakiin Telegram ku saabsan. Lacagta saamka u fiirisid waxaa kaloo gelinaysaa waxaa fiirinaysaa liquidity-ga inay lock tahay ama ay xiran tahay waa inaad iska eegtaa inta aadan gelin price-ka ama lacagta aadan ku degdegin. Halkan waxaa waaye buyers-ka 58% buyers-ka ayaa badan lacagtan dhahayaan. Kan waxaa waaye 46% sellers waaye. Lacagtan waxaa fiirinaysaa yaa sameeyey yaa iskale
hadda marida waxaa loo saaray 3,000 aa loo saaray oo calanka ah. Haddii mar calankaas loo saarayo waa yani okay, calamadan calaamad iska normal waaye. Labadan calaamad ugu fiican, labadan calaamad siiba kan haddii loo saarayo ee dadku u badan yihiin ay u saarayaan, yacni waxay ka dhigan tahay feedback fiican ayuu leeyahay, ama community waxay ka bixinayaan feedback fiican. Waxaa fiirinaysaa website-kooda, fiirinaysaa website-kooda, account tokenka website-kiisa ayaad inaad geshid ayaa fiirinaysaa. Website-keed waxaanay kusoo qoreen dhag akhrinaysaa haddii yacni wax macquul ah ay kula noqdaan. Okay waaye. Okay, no problem. Waxaa kaloo fiirinaysaa Telegram-kooda haddii community fiican leeyihiin baa ka ogaanaysaa. Waxaa kaloo ka ogaanaysaa haddii aysan lahayn, sidoo kale oo ka ogaan karaysaa. Okay, Telegram-kooda waa kana. Oh, Telegram-kooda waa kana, maadaama hadda aan soo galay 3 bishii December ay sameeyeen, yani waxa ma soo busti garayaan, iska sameeyeen laakiin waxa ma soo busti garayaan. Okay, waxaan isla fiirinaynaa marka haddana. Isla fiirinaynaa dhag kan iska bixi, kan iska bixi, screen nagu celi. Fiirinaynaa X-kooda marka fiirinaynaa, maadaama kan X-keena hore ahaa iska cancel, kan iska cancel. Okay, calaamadiga u saaran 1.4.7 milyan ugu xiran horta. Maybe inay McDonald's saxda ahaayeen laga yaabaa, I don't know, laakiin wax tobanka ku saabsan ma soo dhigayaan. Akhbaaraad ku saabsan tobanka inay soo dhigeen inta kala soconaysaa dhag. Laakiin kastoo 5 hour yahay tobankooda oo shaqeynayo, maybe haddii ayaga ay sameyn lahaayeen qof kale inuu ka been abuuranayo macquul inta sameeyo soo bandhigay. Okay, no way, no way. Telegram-kooda walba ma leeyahay tik, maybe I don't know. Anyway, go. Okay, marka tokenkan waxaad kaloo ka fiirinaysaa koob yaa dhahaysa adreeskeeda. Waxaad tegaysaa website-ka, waxaa lagu magacaabaa website-kan waa ku fiiriyaa, waxaa la rock check. haddana arkayn rook check meesha waxaan ku qorayo hoos ayaa idiin soo dhigayaa linkiga rook check oo lagu check gareynayo. Okay, saan kusoo baxay. Meeshan ay ku qoran tahay token address ayaad paste ku dhehaysaa tokenkii aan soo koobi karaynay adresskiisa. Okay, waxaa kusoo baxaya marka risk analyst-kiisa wuxuu ku leeyahay waa 300. Okay, taas micnaheeda hadda uma soo. Okay, waxaan fiirinaynaa liquidity-ga oo wuxuu yiraahdaa 73% liquidity waa locked waa la xiray. Okay, wuxuu ku dhahay sidoo kale 1 billion supply market cap-kiisa waa 1 billion. Okay, waxaa iska leeyahay hadda milyan ahayna holders top holderska ayuu ku sheegayaa dadka ka haystaan 48 milyan 5 milyan. Okay, so marka midkan asla fiirinaynaa. Next waxaa idin hadda hordhac waayo, waxaa idin sharaxooyo tokenka waxaad ku door lahayd, waxaa uga tegi lahayd ayaan ku fiirinaa. Hadda intaan mida iska qabanaynaa mid weyhaba, yacni waxaan ku tusaa mid scam aan ku tusaa mid scam ah aan ku tusaa. Tusaale ahaan kan hadda uu business mooyaane kaadi kan sac ka hor la kan 3 beri ka hor la galay anyway ka dhaca marka asiga kan u fiican sameynayna mid cusub aan isla fiirinaynaa.
Mhm. Kan wuu cusub yahay. Waxaa la sameeyey 2 saac ka hor la sameeyey ama 3 saac ka hor. Ujeedaa liquidity buu xiran yahay. Liquidity buu xiran yahay. Waxaa fiirinaynaa walletkiisa soo koobiyeynaynaa. Walletkiisa markaan soo koobiyeyno waxaa imaanaynaa root check. Root check markaan imaano past ayaan ku dhahaynaa waa eegaynaa qaabka yani u socda. Risk analysis waa 500 ayuu leeyahay. 99% waxa waaye locked waaye uu xiran yahay. Okay. This is maybe good. Okay. Waxaa kaloo fiirinaynaa telegramka ayaan ku eegaynaa arag. Past ku leenahay podkan. TT pod ayaa la alaabtan. Wuxuu kuu sheegaa yani tokenka inuu yani hadda laba bodaas barbarigaynaa fiirso. Okay. Tokenkan is okay. Ya, aniga waan geli lahaa waan ku qanacsanahay. Waxaan ku tusaa mid kaloo la yiraahdo GN pot. GN pot ayaan ka fiirinaynaa hadda waxa uu sheegay inay sax yihiin. Wuxuu leeyahay twitterkiisa sax waayo dhahay. Sababta calaamad tigta aniga soo arkaynay. Telegramkiisa okay waayo ku lahay. Websitekiisa okay. Kaas dhaca. Marka wuxuu ku dhahay wuxuu ku dhisan yahay ku dhahay Solana ayuu ku dhisan yahay. 2 saac ka hor la sameeyey. Market capkiisa waaye 98,000. Liquidity-giisa waa 18,000. Inkastoo liquidity-giisa yar tahay, price-kiisa wuxuu marayaa intaan 0.4. Diifka current balance-giisa waa 0.2. Balance-ga Solana ay haystaan waxaa waaye 1.0 oo Solana ah. Holding-ka waa haysta 20%. Okay. Marka dadka inkastoo dadka gadanayo yani ay u dhaxeeyaan waqti badan, sekano badan, waxaa la rabaa meesha inay ahaato 4 second, 3 second, 2 second inay ahaato. Isbuuc waxaa kaloo noo dhiman amountiga wax lagu kala iibsanayo hadda qaabka uu yahay. Okay. Waxaa fiirinaynaa marka top traders hadda 1000 qofood haysato yani banka. Top traders waa kana qofkan ugu socda. Qofkan fiirina. Waxaan fiirinaynaa qofkan inta lacag uu ka sameeyey marka. Walletkiisa tegaynaa. Solana scan ayuu nageynayaa. Solana scan markuu nageeyo waxaa eegaynaa marka meeqa portfolio haystaa qofkan, imise lacag uu ka sameeyey coinka hadda arkaynay McDonald. Okay. Waxaa kale intaan waxaa waaye addressidii walletida uu ka sameeyey. Okay. Qofku waa kana addresskiisa walletkiisa waa kana. Okay. Solana waa overview waa 0. Qofkan waa eber. Okay. Portfolio-giisa eegna. Portfolio malahan waa 0. Transfer waxyaaba transfer gareeyay. Waxyaaba transfer gareeyay waa kana. Kan oo galay transfer wuxuu isku sameeyey 14 Solana uu select gareeyay. Volume-keeda gaarayso 2,900. 178. Okay. No problem. Balance changes-kiisa. Isku balance gareeyay. Hadda inuu ku jira fiicnaan hadda laakiin walletka sii fiirinaynaa. This guy is not good I think. Okay. Kan labaad eegaynaa marka. Top traders aad taabanaysaa. Top traders markaad taabatid waxaa eegaynaa kan labaad. Ayaan ku dhufanaynaa. Kan labaad markaan ku dhufano
waxaa noo soo baxaya adreeskiisa, adreesyada kuwaan inta kaga soo baxaya halka qofood labaad waxaan waa inta uu saygareeyay waa mafahanti. Marka kanaan gelinaa marka su'aal iskaankii u furaya su'aal iskaan ku furo. Okay. 1 hour ago ugu dambeysay wax sameeyo. Okay. Portfoliogiisa eeg. Oh no. 0. Anyway, waxaan eegaynaa marka Amazon aan eegaynaa. Amazon 18 saac kahor lasoo sameeyay iska daa maadaama hybrid kaalinta labaad kana 14 minutes lasoo sameeyay Red Bull. Okay. Mujida qolkiiba 5 waxa waaye Paris. Qolkiiba mujida intaan yartaa 500 waxa waaye soo xiran yahay. Hadduu bilaabanaa waxa lasoo sameeyay kan 14 minutes lasoo daayay. Marka fiiri dadka lacagay wax ku iibsanayaan amountiga ku iibsanayaan aad u yaryahay. Yacni ilmaha wax habboon maahan. Okay. Waxaa kaloo eegaynaa adreeskooda marka adreeskeeda eegaynaa. Waxaa kaloo eegaynaa kan u saaray 4 qofood u saartay maadaama oo shaqeyn weyn kan hadda 15 daqiiqo ayuu jiraa. 15 daqiiqo ayuu jiraa tobankan 15 daqiiqo jiro mujida 400 oo muraa riski analyskiisa qolkiiba 100 loo kadwayo ayuu leeyahay macnaha lama soo dayna. Okay. Muhiimadda aan website-kan kalena waa inta oo keliya. Okay. Waxaa kaloo eegaynaa marka Telegram-kan ku eegaynaa GMB port kan nooga warranayna marka xogtiisa kulmasi. Okay. Wuxuu leeyahay website ma lahan mujida website ma lahan u dhahay. Okay. waxaa kaloo dhahay Snabriska mujida waxaa ku jirto 22 Snabriska ku jirto u dhawaanaysid. First buy waxa waaye qolkiiba 70 iibsatay. Okay. No minting, no blacklist, right. Okay. 15 minutes ago created. Okay. Anyway, waxaa kaloo back TP aan ku fiirinaa marka bot. Kan wuxuu ka dhaha aragna oo kan yacni informationkiisa ma badno sida kii kale waa daxmo ah. Sida kii kale waa daxmo ahaan. Okay. Hadda mujida yacni wax seelga waa scam caadi ah kan. Scam caadi ah waa. Hadda inta yarta ahayd waa fiirinaynaa dadka lacag intay ka sameeyaan marka qof uu taabahaynaa. Hal qof waa la asiga bisoo ku jira. Okay. 1 minute. Okay. 1 minute. Qofkan hadda balansigiisa mujida waa 3 Solana haystaa 3 dollar haystaa ayuu ku galay. Okay. Portfoliogiisa eegaynaa portfolio qofkan markaa intaan ku dhahay qofkan waa iska 3 inta ku gal yahay lacag fiican kuma gelin.
Okay, anyway saaxiibayaal intaas ayaan cashirka in kugu soo ekeenayaa. Twitterka iyo dero sorry waxaan idin soo dhigayaa anigoo live trade sameynayo toban kamida kuwaan soo qaadanayo live trade anigoo ka sameynayo inta lacag aan ka sameeyin idinla wadaagayo si live ah ayaan idin soo duubi doonaa insha Allah, ama cashir ama qaybta telegramka ardada ku jirto haddii aad ka mid tahay waxay noqonaysaa inaad livekaas qayb ka ahaatid, su-aasha doontidna aad igu weydiin doontid insha Allah. Marka waxaan ku leeyahay halkan haddaad nala soo gaartay fadlan telegramka soo raac, asxaabtaadan u sheer garay, fiidiyogan meel dheer ha gaaro, isku day inuu meel dheer gaaro. Waa mahadsan tahay. Thank you so much.